السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka shaqeynaa laabkeeni sagaalaad oo ah routing between VLANs. marka waxa lagu yiri connected devices as shown sida ay u muuqato isku xidhba lagu yiri marka waa kan waa VLAN kooy konton VLAN laba konton marka halkan waa ISP intaasi muhiim aha hadaba VLAN kooy konton aan sameeyno su'aasheena labaad aan eegno waxa lagu yiri create VLAN kooy konton engineer uu bixi VLAN laba konton MGMT uu bixi on switch assign ports as shown marka portyadana sida ugu xidh marka aan kan horta enable configure terminal waxaan VLAN kooy konton VLAN kooy konton namekiisa ACC waanu bixinaa VLAN laba konton baadhana namekiisa MG baanu bixinaa exit baanu odhanaa hadana interface-yadii baan galnaa fast enter 0/2 switch port mode kiisa waxaan odhanaa access switch port access VLAN kooy konton baan gelinaa ka exit baan odhanaa interface fast enter 0/3 switch port mode kiisa access baan ka dhignaa switch port access VLAN laba konton marka neegina kan waayimsa fast enter 0/2 weeyaan kana kan baan gelinaa fast enter 0/3 weeyaan kan ayaan gelinaa kana fast enter 0/2 ayaan gelinaa hadaan show AB interface hadana show VLAN adarkisa fast enter 0/2 oo VLAN kooy konton waka VLAN laba konton waxa weeyaan fast enter 0/3 marka fast 0/2 waa VLAN kooy konton VLAN laba konton waxa weeyaan fast enter 0/3 oo kuwa noo soo kacay way su'aasheena saddexaad configure router on stick design. The router should be the first IP address on each subnet. Note, the trunk port between router and switch should only allow kooy konton VLAN kooy konton laba konton iyo VLAN 1 key. way hadaba hortaan soo interface-kiinan ayaan soo shidanaa interface-kani muxuu yahay waa giga ethernet 0/0 way nooban odhanaa waxaan interface giga ethernet 0/0 no shutdown baa odhanaa no shutdown oo ka shidmay IP address la siin maayo ka maxaan ku leeyahay IP address la siin maayo laakiin hadaba si labada VLAN isla ma hadli karaan labada VLAN imka hadana IP address baan soo siinaa intaana router stick u gelin waxaan eeginaa intaana u gelin horta IP address-da aan soo siino dibic 255.255.255.250 kana IP address kan soo siiyo waa 10.1.52.2 255.255.255.0 oo ah class C way waxaan odhanaa ping 10.1.51.2 ma ping garaysmayo waayo waa laba kala VLAN aan eegno waa request timeout mid labaadna aan eegno wataas marka ma ping garaysmayo hadaba waxaan u baahanay VLAN router on stick ama routing between VLANs hadaba marka hore router between VLANs korma la isticmaalaa waxa la isticmaalaa routing between VLANs marka aan laba router haysan ama router fara badan hal router oo kaliya marka halkaas aan virtual link iyo badan imka waa laba VLAN hal virtual link baan ka sameeysanaa kow iyo mid laba marka interface-kaas ayaan kala qaybanaa laba virtual link u kala qaybanaa marka waxay ka dhigan tahay router kan ayaan bartan ku dhufanaa VLAN 1 iyo VLAN 2 aan u kala baaleen marka hadii aan
haddaad iminka laba router haysatid waxaad u baahan tahay routerkan iyo mid kale iyo switchkan iyo mid kale root iyo device-kaas oo soo maraya switchka iyo routerka haddana kan buu kusoo dhici lahaa switchkan haddana kan saas laakiin haddaanad haysan ayaad router between VLANs isticmaalaysaa ama router on stick baa la dhahdaa haddaba sidee baan idhahnaa waxaan odhanaa interface-ka waxaan gelinaa exit interface-kiga internet 0/0.1 baan odhanaa virtual linkigii koobaad baan samaynaa logicalkii koobaad logical virtual ma logical way odhanaa encapsulation.1q VLAN kooyo control IP address-kiisaasaan siinaa saddexdaan hore waan iska mid noqon dhamaan 10.1.1 way 255.255.255.0 waan kasoo baxaynaa haddana interface-ka waxaan gelinaa 0/0.2 waa logicalkii waa linkii labaad waxaan odhanaa encapsulation.1q 250 waxaan odhanaa IP address 10.1.255.255.0 haddaba kan waan koobiyeyna waxaan gelinaa wax default address waa inuu noqdo default gateway waan ujeedaa ayuu noqonayaa kan default gateway wuu noqonayaa kanna waxay u dhigantoo kale waa laba router de hadduu kani router ku xidhnaan lahaa default gateway-giisu router buu ahaan lahaa marka midna kan baa isticmaalay default gateway-gii midna kaas marka laba logical link ayaan abuuranay logical link aanad arkayn laakiin way ka jiraan halkan marka waa culays buu noqonayaaba markaan eegna inay spin garayn karaan waxaan kaloo bahalaynaa horta intaanaan spin garayn waxaan odhanaa interface-kaas configure terminal interface fast internet 0/1 waxaan odhanaa switch port mode-kiisa waxaad ka dhigtaa trunk baan odhanaa oo waa inay trunki noqotaa way haddaba iminkaan spin garayno tii hore waa kaas maragta tii labaad aan eegno inay spin garaynayaan because time autocast reply from wataa waa lasoo reply gareeyay IP address-kaas ana soo jawaabay haddaan kan nimaano aan bin garayno bin 10.1.v2.2 wakaa reply from wuu soo jawaabaya way wakaa way noo shaqaysay waxa kaloo lagu yiri baalkii waa should only allow VLAN when VLAN 2 haddaan eegno kan haddaan idhaahno show interface trunk haddaan idhaahno maragtaa portigaasi allowed wuxuu yahay VLAN 1 iyo 150 iyo 250 saddexdaas uu VLAN haddaan sii muujino waxaan odhanaa interface-kiga internet 0 waxaan ujeedaa interface fast internet 0/1 switch port trunk allowed VLAN 150,250 hadday dhowr tahayna saasoo wadaysa show interface trunk haddaan idhaahno okay portiska waxaa loo geliyay 150 iyo 250 VLAN 1 waan kusii darin karnaa saas oo kale iyo 1 haddaan idhaahno show trunk wata VLAN is allowed and active management domains wataas 1 iyo 2 1 iyo 5 iyo 3 marka VLAN allowed trunkiga waxaa loo geliyay 1 iyo 150 iyo 250 saddexdaas loo geliyay way su'aasheena saddexaad waxa weeyaan commuter in VLAN 150 should able to ping commuter VLAN 250 and vice versa waa kay ay spin garin kareen taasna way noo soo dhamaatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.